بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومعلمنا والمسلمين، آمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركو وهريس إلهي ومهد إسكاله إلهي مركا لنو سورتقليي أنه خيراتك إيا وناك إسو شاغينه وحانو قادن دون هدي إلهي راهده أحكام العيد وآدابه. إيدا أحكام تيدا إيا آداب تيدي أيان قادنينا محايا إلهي سبحانه وتعالى ومديسا وحو أجديي laba iidood oo aad iyo aad u waaweyn. laba iidood ayuu ilaahay ummadda u jideeyey. waxyaabihii ilaahay uu jideeyey ka mid tahay labada iidood oo waaweyn. maxaa loo jideeyey? liidhaari alfaraxi, faraxa in la muujiyo oo bannaanka lasoo dhigo, iyo suruurka iyo faraxa iyo reynraynta in bannaanka lasoo dhigo, iyo ilaahay oo lagu shukrinaya nicmadaasu ilaahay uu ku siiyey oo cibaadooyinka waaweyn, laba cibaado oo waaweyn oo rukn min arkaan alislaam lasoo gutay middoodii ayaa loo weynaynayaa. marka labadaasi waxa waaye iidood, waxaa lagu muujinayaa farax iyo raynrayn iyo shukri ilaahay lagu shukrinaayo. ilaahay cibaado inuu dhammaystiray ayaa lagu shukrinayaa. labada iidood, iidda koowaad waa iidda soonfureed. markii soonka uu soo dhammaado ayaa la iidaa. farax waaye. dhinaca koowaad waa farax, in farax la muujiyo, raynrayn la muujiyo, iyo shukrin ilaahay lagu shukriyo faradkii ramadaanka uu dadka u soo dhammaystiray. midda kalena waxa waa ilaahay baa jideeyey ciidda weyn, ciidda carafa la yidhaahdo. ayadana waxa waaye waxaa loo jideeyey in farax iyo raynrayn la muujiyo iyo nicmada ilaahay in lagu shukriyo, oo nicmada ilaahay soo dhammaystiray xajka xujayda xajkooda ay dhammaystirteen. muslimiinta hal mar bay isla farxayaan maalintaasi ciidda ah. marka taas waxaa la yidhahdaa alciidu huwa mawsimu alfaraxi waasuruuri. ciidda waxaa la yidhahdaa mawsimka xilliga faraxa waaye, xilliga reynraynta waaye. wa afraaxu lmu'miniina wasuruur hum fi ddunyaa inamaa huwa bimawlaahum faidaa faaza biikmaali taacatin wajazuu hawaaba acmaalihim. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siinayaa afraaxu lmu'miniin, mu'miniinta faraxooda iyo suruurkooda adduunyadaani ay ku farxayaan, ay ku sururayaan, oo reynraynta ay ku noolaanayaan. innamaa huwa wax kale ma ahan, ilaahay xaggiisay ka timid. ilaahay baa u fasaxay bimawlaahum. idan faazuu, waxay liibaaneen. idaa faazuu, markay ay ku liibaanaan biikmaali taacatihi, taacada ilaahay uu ku lahaa dhammaystirkeedii markii ay ku liibaanaan. wajaazuu hawaaba acmaalihim, markuu ilaahay ka abaalmariyo camalkooda uu ka thawaabsiiyo,
waxaa la yidhahdaa liyuwafiqahum biwacdihi in laga dhabeeyo ilaahay wacdigiisii lahum ayaga loo dhabeeyo calayha bifadlihi wa makfiratihi. marka farax iyo raynrayntaasi waxa waaye waxaa loo farxayaa loo damaashaadayaa nicmada ilaahayna siiyey oo waxa waaye faraxaasi la muujinaayo iyo ilaahay lagu shukrinayo nicmadiisii daacadiisa la soo gutay iyo thawaabka faraha badan oo ilaahay laga rajaynaayo. ilaahay qur'aankiisu wuxuu ku yidhi qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun. qul waxaad tidhahdaa nabi maxamedow bifadli illaahi ilaahay fadligiisa iyo waraxmatihi ilaahay naxariistiisa fabidaalika kaas falyafraxuu ha ku farxeen huwa kaas ayaa khayrun u khayr badan mimaa yajmacuuna waxaan ay jamcinayaan ay ururinayaan. bacdulcaarifiin culimmada qaar waxay yidhaahdeen maa farixa axadun bigayri illaah ilaa bigaflah can illaah. waxa waaye maa farixa axadun qof kuma farxo bigayri illaahi waxaan ilaahay rabin kuma farxo ilaa bigaflatin can illaahi waxa waaye mooganaan ilaahay uu moogan yahay waaye. falghaafilu qofka ghaafilkaa yafraxu bilahwihi lahwiga iyo maalaayacniga ayuu ku farxaa qofka ghaafilka ah lahwigiisii hawadiisii. waalcaaqilu qofka caaqilka oo caqligana yafraxu bimawlaahu ilaahaygiisa ayuu ku farxayaa. marka faraxa qofka ilaahay ka fog faraxiisa wax u yahay ma leh. qofka ilaahay ku xiranna faraxiisana waa farax oo ilaahay ku xiran yahay waaye. waxaa la jideeyey waxa waaye leylat alciidi attakbiir. habeenka ciidda waxaa la jideeyey takbiir ayaa la jideeyey. waxa waaye tan habeenka bilaabanaysa takbiirta waa tan oo ciidulfitri waaye. tan kale takbiirta horeyaa loo soo wadaybe. ilaahay wuxuu sheegay iyo dikriga ilaahay yu'addi assalawaat salaaddii ayaa la gudanayaa fi lciidi alfitri. ayaga takbiirta ciidulfitriga waxayba ka bilaabataa markii bisha la sheego iyo salaada ciidda inta laga dukanayo unbay takbiirta u dhexaysaa. sheekha la yidhahdo ibnu qudaama kitaabkiisa muqniga wuxuu ku yidhi waxa waaye waxaa muuqda wayadharuuna atakbiir waxay muujinayaan dadka inay ilaahay u takbiirsadaan fii layaali alciidayni labada ciidood labada habeen wa huwa fi lfitri akadu habeenka ciidulfitriga soo gelaysa ayaa xoog badan. maxaa yeelay ilaahay baa qur'aankiisu ku yidhi walitukmilu lciddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. walitukmilu lcidda inaad tirada aad dhammaystirtaan iyo walitukabbiru llaaha inaad ilaahay u takbiirsataan calaa maa hadaakum hanuunkan ilaahay idinku hanuuniyey iyo walacallakum tashkuruun inaad ilaahay ku shukrisaan. waxa waaye jumlada annahu yustaxabu linnaasi idhaaru takbiir waxa waa duduub ahaan waxaa dadka loo jideeyey waxaa oo loo suneeyey inay takbiirta muujiyaan fii layaali alciidi fii masaajidihim wa manaasilihim. waa midda ciidulfitriga ah waaye. maxaa yeelay ciidul adxa takbiirta bisha markay bilataba ayay ka soo bilaabanaysaa. tanna markii ciidulfitriga markii ay bisha ay soonfur ay dhalato habeenkeedii ayaa la takbiirsanayaa. layaali alciidi waxaa lagu takbiirsanayaa masaajidda, guryaha, waddooyinka. dadka hadday yihiin musaafiriin way takbiirsanayaan. hadday aan musaafiriin ahayn oo muqiimiin yihiinna way takbiirsanayaan. lidaahiri alaayati aayaddaasaa ka muuqato aan ka soo hadalnay walitukmilu lciddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. aayaddaas ayaa caddaynaysa. taasna waa mid waaye. waxaa kaloo ka sugnaaday rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam xadiis oo cabdullaahi ibni cumar radia allaahu canhuma. cabdullaahi ibni cumar naftiisaba annahu kaana yukabbiru wuu takbiirsan jiray yowmu alciidi xataa ya'ti almusalla
waa ciidulfitriga waa ilaa uu musallaha ka soo gaaro meesha iidda lagu dukanaya ilaa uu ka soo gaaro uu takbiirsanayay wa yukabbiru xataa ya'tiya alimaam takbiirta ayuu wadaya ilaa imaamka uu ka yimaado wa amaa fii ciidi aladxaa marka ciidda ciiduladxaa lirado iid weynta waxa waye labada iidood oo ugu waaweynba waa la takbiirsanayaa mid kastaba bisha markay bilatay bilaabanaysaa ciidulfitriga takbiirta waxay ku eg tahay imaamka markuu uu salaada uu galo ayay takbiirta ku eg tahay amaa ciiduladxaa aan u soo galna marka amaa ciiduladxaa fa yamtaadu attakbiiru takbiirta qofka wuu sii wadayaa bisha markay soo dhalatay maxaa yeelay horay baa waxaan u soo sheegnay takbiirta la qaadayo bisha ciidda markii la qaadayo la takbiirsanaayo waa laba qaybood waaye mid waa mutlaq waaye meelna kuma xirna guryaha shaqada meel kasta jidadka waa lagu qaadayaa waxa waaye salaad keliya salaada gadaasheeda kuma khaas aha waa mutlaq waaye midna waa muqayado maalinta carafo markay xujaayda ay carafo ay u dhaqaaqayaan salaada subax laga bilaabo salaadaha gadaasheeda ayaa lagu qaadayaa marka amaa ciiduladxaa ayaan wadnay ciiduladxaa takbiirteeda way soconaysaa ilaa aakhiri ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo tan ugu dambayso ayaamu tashriiq ayaamu tashriiq ilaa laga gaaro marka nabiga sala allahu calayh wasalama ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa sharbin wa dikrullaahi buu yidhi macnaha ayaamu tashriiq ah maalinta ciiduladxaa 10 markii ay dhammaato maalinta 11 iyo 12 iyo 13 ayaa ayaamu tashriiqa la yidhaahdaa saddexdaasi ayaamu tashriiqa la yidhaahdo waa ayaamu aklin wa sharbin wa dikrillaah waa maalin cunitaan iyo cabbitaan oo wax la cunaayo oo wax la cabbaayo oo la damaashaadaayo oo ilaahayna la xusaayo waxa waaye taas waaye waad cunaysaa waad farxaysaa ilaahayna waad xusaysaa ilaahay kuma caasanaysid imaam muslim ayaa soo saaray imaam bukhaarina wuxuu yidhi saxiixiisa cabdullaahi ibni cumar wuxuu ahaa kii takbiirsada fii qubbatin biminan teendhada oo mina ugu taallo ayuu ku takbiirsan jiray fa yasmacuhu ahlulmasjidi wuxuu maqashiin jiray dadka masaajidka ku jira asagoo teendhadiisa gurigiisa jooga mina ah ayuu takbiirsanaya dadka masaajid ku jira ayuu maqashin jiray fa yukabbiruuna ayagana way la takbiirsan jireen fa yukabbiruuna wa yukabbiru ahlu suuqi dadka suuqa maraayana way la takbiirsan jireen xataa taruja mina takbiira ilaa ay magaalada mina maxaan ku idhahdaa takbiir ay la gilgilato ayaa takbiirta ayay soconaysay marka waa kaa wa kaana ibnu cumar yukabbiru bimina daalika alayaam maalmahan ayaamu tashriiqa ah si gaar ahaan wuu takbiirsan jiray wa khalfu salawaati salaadaha shanta markii laga baxana wuu takbiirsan jiray wa calaa firaashihi gogoshiisana wuu ku takbiirsan jiray wa fii qustaatihi teendhadiisa dhexdeeda wuu ku tasbiixsan jiray wa majlisihi meelaha uu dadka la fadhiyo iyo meelaha uu fadhiyana wuu ku tasbiixsan jiray wa mamshaahu meelaha uu ku lugaynayana wuu ku takbiirsan jiray tilka alayaamu jamiican maalmahani oo dhan saas ayuu u takbiirsan jiray taasna waa mid waay walaa yakhtasu laylatay alciidayni bimasiidin qiyaami afdalin walaa yushracu laha ijtimaacun liannahu lam yarid isharcu waxaa laga yaabaa dadka qaar inta ay wax la ficnaato oo waxawa maadaama maalintan aysaan ay tahay wanaaggan lagu sheegay wax kaloo adiga kula ficnaatay iskama samayn kartid marka labada habeenka iidda ah ziyaado oo qiyaamuleyl oo ziyaado ah kii aad dukan jirtay ka sii badan waxa waaye sida laylatulqadri oo kale u raadi ma jirto lamana jidaynin in dad ay isku imaadaanna lama jidaynin waayo taasi mimaa yadullu calaa takhsiisihima waxyaabo oo cibaado gaar ah lagu khaas yeelo la yidhi habeen labada iidood ma jirto waxaa soo arooray maxaanku idhahda waxyaabo kale oo aan jirin oo dadka qaar la ficnaatay ayaa jira
waxa waaye habeenaha kale unbay la mid tahay xagga salaatuleylka sidii aad u dukan jirtay waxa waaye wax kasta oo sidii caadiga ah habeenaha kale unbay la mid tahay haddii la yidhaahdo salaatuleyl iyo waxaasi rasuulka sal allahu alayh wasalama iyo asxaabtiisa waxyaabo khaas oo ay ku khaas yeeli jireen oo ziyaado ay samayn jireen ma jirto waxaa la soo wariyey maxaan ku raha waxyaabaha dad badan oo taabiciinta ka mid ah habeenkaas inay noolayn jireen ixyaa'uhuma can daa'ifati min ataabiciin dad taabiciinta ka mid ah way noolayn jireen wa huwa qowlu marjuuxi waxaa hadal laga xoog badan yahay way yidhahdeen culimmada inay habeenkaas ay xoojin jireen taasi wahada ijtihaadun minhum lianna annaasa takfalu gaaliban can alcibaadati fi tilka alleyla macnaha ayaga waxay leeyihiin habeenkaas in la nooleeyo waay waxaa loo noolaynayaa waxa waaye dadka badankiisii wax kaley ku fakerayaan way halmaansan yihiin cibaadadii iyo wixii oo dhan way halmaansan yihiin xilliyada dadka cibaadada ay halmaansan yihiin in la nooleeyo waxa waaye way fiican tahay sidaas ayay yidhaahdeen dadka badankiisii khaafiliin waay oo waxa waaye ghaaliban cibaadada habeenkaasi dadka waxa waaye way halmaansan yihiin walaa xaraja calaa axadin fii salaatin fiiha munfaridan qofka inuu salaatuleyl keligiisa uu dukado awal buu duka jiray wax dhiba ay leedahay male liman kaanat lahu caada qofkay hor caado u ahayd oo wajada nishaatan mise dad kale oo uu la dukanayo nishaad ka helaayo waxba dhiba ma leh laakin laa yajuusu alictiqaadu laakiin ma bannaana in la rumaysto bal bian lahaa masiyatun inay habeenkaani masiye gaar ay leedahay oo salaatuleylka ayaa lagu gaar yeelay masiyadaasi gaara ma leh macnaha oo fadlulmaqsuus fadli khaas ana laguma sheegin oo mashruuca ibnulqayim wuxuu ku sheegay asagoo hadyiga rasuulka caddaynaya sala allahu alayh wasalama waxa waaye fii bayaani hadyi nabiy sala allahu alayh wasalama fii leylati aladxaa huma naama xataa asbaxa walam yuxyi tilka alleyla habeenkaasi ma noolaynin walaa asaxa canhu fii ixyaa'i leylati alciidi shay-un waxaa kaloo xaaraam ah oo maalintii ciidka weli ku jirnaa waxaa kaloo xaaraam ah sawmu yowmi alciidi maalin ciideed in la soomaayana xaaraan waaye qofka inay fadligeed iyo wanaaggeed intuu la dhaco waaba iska soomaa inuu yidhaahdo in maalin ciideed la soomo waa xaaraan xadiidkii abi saciidin alkhudri radia allaahu canhu anna rasuulahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay nahaa wuxuu reebay can siyaami yowmayni laba maalmood soonkooda yowmu alfitri wa yowmu annaxri maalinta ciidulfitriga ah in la soomo rasuulka xaaraam ayuu ka dhigay wuu reebay maalinta ciidul adxaa in la soomana rasuulku waa reebay imaamu muslim ayaa soo saaray wa min siyaami fiihimaa waman saama fiihimaa kaana ihman qofkii sooma wuxuu soonkiisa waa dembi soonkana waa buraayaa mana u guntamaayo soonna uma xirmaayo maadaama uu nahyi ku soo arooray waa xaaraam xaaraamna ajarba ka helaysid inaad ku dembawdo maahane waxaa kaloo la yidhahdaa mana guntamaayaba mana dhacaayaba wa yusannu aadaa'i salaati alciidi alfitri haddii ciidulfitriga tahay waxaa sunno ah in salaada ciidda la dukado waaladxaa maalinta ciidul adxaana in la dukado waxaa habboon qofka muslimka in uu daa'imo waxa waaye oo maxaan ku rahdaa uu daa'imo ilaa man cadara labada iidood qofka inuu dukado waxa waaye inuu daa'imo ciidahaasi dukashadooda ayaa wanaagsan ayaa qof kastoo muslima u habboon ilaa qofkii cudurdaar leh ma ahane qofkii cudurdaar sida saxiixa min aqwaali alfuqahaa sida ay fuqahada ay qabaan salaatulciidi sunnatun mu'akkada culimo qaar waxay yidhahdaan waa sunno oo mu'akkada waaye qaarna waxay yidhahdaan fardu kifaaya qaar yarna waxay yidhahdaan fardu cayn marka salaatu ciidda waa sunnatun mu'akkada laa yalzimu ficluhaa ficilkeeda laazim ma aha inuu qofka uu la yimaado laazimka ma aha dad qaara waxaa laga yaabaa sida ciidda ay ugu murgaayaan markii ay dhaafto oo hortooda la dukado mise maxaan ku rahda ay dhaafto ayagoo mashquulsan mise cudurdaar haystaan faradka sidaysan ugu murgayn ugu murgaaya marka waxa waaye maxaan ku rahdaa shaciiradaas iyo khayrkaas in laga fekero waa muhiim waaye laakiin waxa waaye faradka ma gaarsina fa calayha laa yalzimu ficluha walaa ya'hamu lmuslimu bitarkiha qofkii maxaan ku rahdaa sameeyana
wax waaye wax oo dhibaato ah ma leh qofkii ka tagana dembi korkiisa maaha xadiidu dalxa ibnu cubaydillaahi dalxata ibnu cubaydillaahi waayahay waxaa ku jira xadiiskaasi rasuulku sala allahu calayh wasalama 5 salawaatin fi lyowmi walleyla ayuu farad yeelay 5 salaadood habeen iyo maalin fa qaala wuxuu yidhi ninka layidhahdo dalxa hal calaya gayraha wax kale miyaa la igu leeyahay qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa ilaa an tatatawaca inaad ziyaado iyo sunno aad la timaado maahane xadiiskaasna waxay ku tusaysaa salaadaha 5 salaadood unbaa waajib ah salaadaha la dukanaayo inta kale waa ziyaado sunno waaye oo xadiiskaas imaam bukhaari imaam muslim ayaa soo saaray amaa maa ruwiya min amri nisaa'i dadka waxa waaye amarka la bixiyey oo waxaa la soo wariyey haweenka in la soo saaro meesha musallaha in la keeno waa waaye fa maxmuulun cala nadbi macnaha waxa waaye dadka qaarba waxay ku fasireen culamo waxa waaye ha la soo saaro haweenka maqabyooyinka ah iyo haweenka caadada qaba ha la soo saaro ayaa bacdulculamaa waxay u daliilsadeen inay farad tahay ama waajib tahay fardu cayn inay tahay laakiin waxa waaye in haweenka la soo saaro iidda kuwooda maqabyooyinka iyo kuwooda caadada qaba in la soo saaro iidda ay yimaadaan waa sunno waalistixbaabu bidaliili ana alxiyad maa ya'muruuna bisalaati walicadami wujuubi salaati alkhamsi calayhinna fi lmasaajid waxa waaye waa sunno inay maxaanku dhahdaa meeshaasi ay yimaadaan waa sunno waxayna daliil u tahay haweenka caadada qaba salaad lagamaba rababa waxaan lagaa rabin say waajib kugu noqonaysaa waxa waaye licadami wujuubi salaati alkhams 5 salaadood baanba waajib ku ahayn oo masaajidda iyo lagu dukanaayay tan ciidda maba ula jirtaba marka taasina waa mid waay waxaa kaloo ciidda aadaabteeda waxaa ka mid a waxaa la jideeyaa ciidda la yidhahdo ciidulfitriga markii ay tahay markii waxa waaye salaada ciidda la soo aadaayo xoogoo timir ah in la soo cuno ayaa sunno ah inta aan la soo aadin ciid salaatulfitri waxaana soo arooray rasuulka sala allahu alayh wasalam anas ka wariyey qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalama ya'kulu rasuulkeenna wuxuu cunaayey maxankatri maalinta ciidulfitriga ma soo kalahaynin rasuulka xataa ya'kula tamaraat ilaa xoogoo xabado oo timir ah uu cuno wa qaala wuxuu dhahay wa qaala wuxuu yidhi anas waaye wa ya'kuluhunna witran tirada isdheer ayuu cunaayay 3 5 7 9 11 saas ayuu cunaayay imaam bukhaari ayaa soo saaray waa ciidulfitri waaye amaa ciidul adxaa waxaa sunno ah alaklu bacda salawaat salaada kadib in la cuno ayaa sunno ah marka lagu leeyahay maalinta ciidulfitriga qofka asagoo timir cunay ayaa sunno ah macnaha haddaad cunto xaaraan ma aha maadaama ay soonba ahayn haddaadan cunin adoon soomanayn oo aadan cunin xaaraan ma aha haddaad maalintaasi oo ciidul adxa oo aadan wax soo cuntana xaaraan ma aha laakiin waa sida aad ajarka iyo wax aad ajar ka helaysaa lagu sheegayaa oo sunnada rasuulka fa sunnatu alaklu bacda salaati waxaa sunno ah ciidul adxa salaada kadib xadiiska cabdullaahi ibnu yaziid can abiihi qaala wuxuu yidhi kaana nabiy sala allahu alayh wasalama nabiga ilaahay wuxuu ahaa laa yakhruju yowmu alfitri maalinta ciidulfitriga ma soo baxaynin xataa yadcuma ilaa uu wax cuno maxaa yeele waa lasoo soomanaa inaysan soon ahayn in la muujiyo walaa yadcumu yowmu aladxaa maalinta yowmuladxaana waxa waaye wax ma cuni jirin xataa yusalli ilaa uu ka dukado maxaa yeele labadooda waxay ku kala duwan yihiin midna salaada waa la dibdhigaa midna waa la dedejiyaa midda hore timir waa la cunaa waa sunno qofka energy buu qaadanayaa salaada dib baa loo dhigayaa oo dadkii oo sakaatulfitriga bixinaya dagarsoonka dartooda dib looga dhigayaa marka xoogaha enerjina waa ku tahay sunno nabina way tahay middan ciidul adxaana waa la dedejinayaayo maxaa yeelay dadka xoolo ayay qalayaan xoolaha inay wakhti fiican ay qalaan darteedii ayaa loo dedejinayaa waxa waaye qofka asagoo waxa waaye enerjiga ka dhammaanin ayuu imaanayaa marka labadoodaba sidaas waay dhinacna waa sunno dhinacna qofka ayay faa'iida u tahay waxaa kale oo sunno ah
waxa waaye in la isdiibiyo waxa waaye ciidda in la isdiibiyo oo udeeg la ismariyo watatayubu wa lubsu xusni thiyaabi maalmaha ciidda iyo maalmaha jumcada waxay ku kala bedelan yihiin maalinta jumcada waa la qabaysanaya waa isla mid waa la iscarfinaya waa isla mid laakiin maalinta jumcada waxaa fadli badan dhar cad ama qamiis cad in la qaato maalinta ciidda waxaa ayadana fadli badan dhar ha caddaado mayuusan caddaanine dharka kuugu fiican oo kuugu cusub inaad soo qaadato waxa waaye tatayubka in la isdhiibiyo oo la is-udgiyo iyo dhar cusub in la soo qaato axsanu thiyaabi in la soo qaato liannahu yowmu lijtimaaci maalin ummadda iskugu imaanayso waaye wa ziinatin maalin ziineed waaye waxa waaye sida jumcada oo kale jumcada waa la soo qabaystaa waa la soo carfiyaa waxa waaye dhar khamiis cad ayaa la soo qaataa sunnada saas waaye marka ciiddan waa sidaasoo dadka ayaa isku imaanaya maadaama isku imaanayaan qofka inuu issoo carfiyo dharkiisa kan ugu fiicanna uu soo qaato dharkaasi ha caddaado ma siisan caddaanin inuu dhar cusub oo maxaan ku rahdaa dharka ugu fiican oo asaga uu leeyahay inuu soo qaato xadiiskii naafic waxaa laga wariyey cabdullaahi ibnu cumar kaana wuxuu ahaa yakhtasilu wuu mayran jiray wuu qabaysan jiray yowma alfitri maalinta ciidulfitriga qabla an yaqduwa ila almusallaa intuusan musallaha meesha lagu dukanaya intuusan aadin imaamu maalig wuxuu wariyey cabdullaahi ibnu cumar ka wariyey qaala wuxuu yidhi akhada cumar ibnu khataab aabbihiisa waaye aabbihii cumar wuxuu qaatay jubbatan jaakad oo min istabraqin laga sameeyey waxa waaye taabaca fi suuqi fa akhadaha fa ataa rasuula sal allahu alayh wasalam faqaala yaa rasuul allah waayahay cumar akhada cumar jubbad ayuu soo qaatay oo min istibraaqin xariirta istibraaqa laga sameeyey waayahay tibaacan fi suuqi ayuu ka soo gaday fa akhadaha wuu soo qaatay fa ataa rasuulka ilaahay ayuu u keenay sal lla ly slm faqala wuxu yhi ya rasuulka ilaahayow waayahay abti haadihi tajamulan waan soo gatay tani inaan isku qurxiyo lilciidi waalwufuudi mise waxa waaye rasuulka ilaahayow xiro waxa waaye waxaad xirataa ciidda iyo markaad wufuudda aad la kulmayso waxaa kaloo sunno ah salaada ciidda markii la aadaayo addihaabu ila salaati alciidi maashiyan salaada ciidda markii la aadaayo waxaa wanaagsan in la lugeeyo lugays ayaa wanaagsan ayay sunnada ka mid tahay in kaana qariiban haddii meesha ay dhowdahay oo lug lagu tegi karo in la lugeeyo haddaan lug lagu tegi karina waxa waaye laazim ma aha in la lugeeyo marba maxaa waaye waa sunne waxa waaye hadday dhowdahayna ajar aad ka helaysaa hadday fog tahayna gaariya raacaysaa sunnada waxaa ka mid ah an takhruja min alciid ila alciidi maashiyan inaad ciidda u baxdo adoo lugaynaya maadaama meesha ciidda lagu dukanayo lug lagu tegi karo waa yahay ciid maashiyan wa an ta'kula shay-an qabla an takhruj ciidulfitriga waaye inaad wax soo cunto inta aadan soo bixin imaamu tirmidi ayaa soo saaray ama idaa kaana almusallaa baciidan hadduu yahay meesha lagu dukanayo meel fog hadday tahay baciid hadday tahay fii buluuqihi waaye mashaqa in lagu gaaro dhibaato fayarkabu qofka gaadiid ayuu iska qaadanayaa tagsiuu iska qaadanayaa waxa waaye gaadiid kasta oo lagu tagaayo ayuu qaadanayaa mar hadday meesha ay dheer tahay oo uu ku dhibaatoonaayo waxaa kaloo sunno ah aadaabteed waxaa ka mid ah ciidda mukhaalafatu tariiqi fii dihaabihi wa iyaabihi inuu isdabamariyo waddadii uu ku baxay oo ciidda uu markuu u socday uu takbiirsanayay uu maray maahana ciidda waddo kale inuu soo maro xadiiskii jaabir radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiy sala allahu alayh wasalama nabiga ilaahay wuxuu ahaa idaa kaana yowmu ciidin maalin ciideed markii la gaaro khaalafa tariiqa waddada ayuu isdabamari jiray middii uu ku baxay maahane mid kale ayuu ku soo noqon jiray taasna waa mid imaam bukhaari ayaa soo saaray waxaa kale oo sunno ah waxa waaye ikhraaju nisaa'i in haweenka la soo saaro xataa alxuyad xataa kuwa caadada qaba fasaxa ah in la soo saaro ila almusalla alciidi meesha ciidda lagu dukanaayo in loo soo kaxeeyo liyashhidna alkhayra inay khayrka xaadiraan
iyo wa dacwatu almuslimiin iyo muslimiinta alla baryigooda ay la aaminsadaan oo wayactazilna musalla rijaali meesha dadku ku dukanaya ay ka fogaanayaan xadiiskii umu catiya radiallahu canha qaala waxay tidhi amaranaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay ayaa wuxuuna amray an nukhrijahunna inaan soo saarno fi lfitri waaladxaa maalinta ciidulfitriga iyo maalinta ciiduladxaa in aan soo saarno alcawaatiq haweenka cawaatiqa layidhaahdo oo guri maxaan ku idhaahdaa iyo walxiyadi kuwa caadada qaba iyo wadawaatu lkhuduuri kuwa maxaanku maqabyooyinka ah fa ama alxiyad labada kale waxaa laga soo reebay fa ama alxiyadu kuwa caadada qaba fa yactazilna salaa salaada meesha lagu dukanayo way ka dheeraanayaan wa yushhidna alkhayra khayrka ayay xaadirayaan takbiirtaasay wax ka qaadayaan wa dacwatu lmuslimiin muslimiinta baryadooda iyo alla barigoodana way ka qaybgalayaan qultu waxaan ku dhahay yaa rasuulka ilaahayow ixdaanaa laa yakuunu fiiha jilbaabun mid annaga naga mida ma haysato jilbaab oo waxa waaye wax jidhkeeda astura ma heli karto qaala wuxuu yidhi latilbisahaa ukhtahaa min jilbaabiha waxay ka soo labisanaysaa ka soo caariyaysanaysaa walaasheedii jilbaabkeedii asturkeedii imaamu muslim ayaa soo saaray waxaa waajib ah haweenka markii ay soo baxaan an yaltazimna min alxijaabi alsharciy haweenka markay ay soo aadayaan inay iltizaamaan oo ay ku dheganaadaan asturkooda sharciga ah wa yatrukna atabaruja nimanka lagu ruruganaya inay ka fogaadaan tabarujka macnaa isqaawinta nafteeda tabaruj la yidhahda wa yatrukna inay iska daayaan atabaruja isqaawin iid waaye intay yidhaahdaan inay iska qaawiyaan iyo wasufuur inay maxaan ku rahda ay sameeyaan lama ogola min tiibin wa idhaarin inay isku soo daadiyaan dhalooyin barfuun iyo ziina iyo dhar qurux badan oo waxa waaye mise dhar oo cawradooda laga arkaayo wixii la mid a inay ka dheeraadaan walyaxrisna calaa cadami alikhtilaati inay ragga ay ku rurugdaan inay iska ilaaliyaan ikhtilaadka raggana inay ka dhowrsanaadaan birijaali fi turuqaat marka sunooyinka ciidda waxyaabaha aadaabta iyo ciidda sunooyinkeeda casharada kale kuwa kale ayaan kusii sharaxaynaa qaybtan halkan ayaan ku joojinaynaa ilaahay ha nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wallahu calaa maa aquulu wakiil wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته